Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel walba naga daawanaysaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijkii qiso iyo qiro. Wuxuu ka socdaa janaalka Cabdi Official Vlogs. Qofka idin hadlaya warkiinta videoyana waa Cabdi Official Vlogs. Ku soo dhawaada xilli kasta inta iyo saacad kasta intaaba meel walba naga daawanaysaanba waxaan idin leenahay ha idin wacnaado waqtigu. Inta xanuunsana lahaa caafiyo, inta arrimo ka xaniman yihiin arrimaha Allah oo fududeeyo, intii dhimatay qabrigooda Allah waasiciyo, qoftii jirana jirada Allah ka qaado. Bismillaahi raxmaani raxiim. Sida tan ayaa ku bilaabatay qisadii. Warku wuxuu naga soo gaaray magaalo ka mid ah meelaha Afrika, gaar ahaan dhanka iyo South Sudan. Ma sheegayno magaca, laakiin waxaynu sheegaynaa qisada iyo sida ay ku dhacday. Dhammaan la socda insha Allah. Wiilku wuxuu sheegay inuu ka soo tegay dalka Soomaaliya markii ay ahayd 2005, dhimayay dalka Kenya. Cabaar ayuu joogay 3 sano, 2 sano iyo wax lamid ayuu joogay. Ma xasuusto waqtiga, laakiin wuu ii sheegay been sheegana ma doonayo. Markaa waxaa dhacay, waxay isbarteen gabadh joogto Kenya, maadaama isagu markaas uu Kenya joogay. Wiilku waa wiil Soomaaliyeed. Wuxuu sameeyay, waxaa laga codsaday inuu aado dalka iyo South Sudan because wuxuu bilaabay inuu la shaqeeyo gawaarida u goosha Afrika gudaheeda, gaar ahaan Khartoum, South Sudan iyo Kenya. Markii uu shaqada bilaabay ayaa waxaa dhacday inuu gabadh ka bartay Kenya. Gabadhii wuxuu caawiyaba, waxay isku go'aansadeen inay isguursadaan, markaasna uu ka doono ciddeeda. Wuu la hadlay, wuxuu yidhi abaayo, waxaan rabaa ciddiina la hadlo, sidaasna arrimaheena ay ku soo gabagaboobaan. Sidee ayay kula tahay? Waxay ku tiri, waa arrin fiican ee warka hore u wad. Waa sida warku igu soo gaaraya. Markaas ayaa waxaa dhacday, gabadhii waxay la hadashay aabaheed iyo walaalkeed, oo aabaheed markaas uu ahay nin duqeey. Markuu la hadlay, waxay ku tiri, aabe yar ayaan iskeensanay, waan doonayaa aabe igu dar. Wuxuu ku yidhi, wiilku yuu yahay, intuusa ka yimid, qabiilkiisa waa kuma. Dhalinyaradii dambe Soomaaliyeedna waxay mar walba isaga dabeecad yihiin inaynan garanaynin qabiil iyo wax lamid ah, laakiin Soomaalinimo oo keliya inay maskaxdooda ku jirto. Marka wiilkii ayay warku celisay, ku tiri, walaala aabe wuxuu yidhi, intee ka soo imaatay, inteed ka timiday, inteed ka soo jeedaa, qabiilkee tahay, intaasba ila wadaag si aan aabe ugu gudbiyo barnaamijkaas, because waxaa lagu xiray guurkeena taas. Wuxuu yidhi, anigu ma garanayo qabiil, mana aqaano wax kale, laakiin waxaan garanayaa inaan Soomaali ahay. Waxaan ka soo jeedaa Muqdisho, Soomaaliya. Soomaali ayaan ahay, adiguna Soomaali ayaa tahay. Waxay tiri, okay, taas waan ogahay, laakiin aabe ma ogolo
taa because wuxuu doonayaa inuu ogaado qabiilka aad tahay, halka aad kasoo jeedo, iyo qabiilkaagu halka ay degaan intaaba. Marka ayuu wuxuu yidhi intaa qabiilkayga ma garan karo, Soomaaliyaan ahay, waxaan ka mid ahay qabiilada waaweyn ee Soomaaliyeed. Marka waa kaa wuxuu ku tiri haye aabe ayaan la wadaagayaa barnaamijka, waana kugu soo warcelinayaa sida walqasiya badan walaalkay. Way baxday, aabe ayay wacday, waxay u sheegtay xaaladda meeshay marayso. Wiilkina marka safar ayuu u baxayo, wuxuu aaday dhanka iyo South Sudan. Gaarigii ayuu sii wadaa. Xaaladdu halkaa markay marayso, wiilkii dharka ayaa ku soo dhoway because wuxuu dareemayaa in lagu adkay doono gabadha dhankeeda, loo diidi doono oo la sii doonin farxaddii iyo wixii ay sugayeen halkaa ay ku banjari doonto. Waa arrin laga xumaadee. Wax yar maalmo ka bacdi, gabadhii ayaa soo laabatay tiri, walaal, arrintii aabe wuu diiday, maxaa xalaa? Haddii aynagu soo barinahay waxaynu naqaanaa inaynu gabdhaha ku adkeenno qofkii ay doonayaan qabiil iyo wax la mid ah. Taasna ma aha wax suurtagala. Soomaaliya ka digtoonaada, taas waa dardaaran xaggayga ah. Waa mid anigu idinkugu darayay, ma aha mid barnaamijka la mid ah ka socota, ma aha. Okay, wiilkii arrintii waa lagu adkeeyey, markaasna wuxuu sameeyey inuu ka takhaluso arrintii oo dhan, oo ka seexdo, oo iska dhaafo, oo arrimihiisa kale hore u sii wato. Wuu baxay, safarkiisii ayuu soo dhammaystay, wuxuu ku soo laabtay dhanka iyo Kenya. Markuu yimid wuxuu ku yidhi, walaashay, aniga waa ii ka diiday aabaha, laakiin wax dhibaata ma lahan. Waxaanu sugi doonaa arrin ani adiga noo qaasa. Intii aan ka soo ogaanayo qabiilkaygana, waxaan samaynayaa in aan shib dhahno, arrinteennana aan si tartiiba u dhammaysano. Laakiin gabadhii way ka diido, way ku tiri, haddii aad hadda ogaanin, hadhow sidee ku ogaanaysaa? Taasna waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah oo weyn. Laakiin ani xaggayga waxay ka tahay qalad, because qabiil wax macnaa ma suubiyo. Labada qofood haddii is jecel yihiin way iska helaan. Ninka ragga ahuna gabadha xilkeeda qaadi karo, wax kale loogama baahnaa. Salaada uu dukanayo, sunkiisana uu bixinayo, wax kale loogama baahnaa. Allahu akbar. Ka bacdi waxaa dhacday wiilkii safarkiisii dambe, asigoo xaaladdu ku adag tahay inuu baxay. Markaana oo maxaa dhahaa astaanka laga raaco gawaarida oo Kenya, markuu baski qaadayay ku yidhi, halkeed u socotaa? Because asigaa wada gaarayo. Laakiin wiilkii wuxuu ku leeyahay, halkee baad ugu socotaa? Markaasuu ku yidhi, dhanka iyo Khartoum ayaan markaan u sii jeednaa. Wuxuu yidhi, Khartoum gabar ayaa iga joogta, saaxiib, lambarkeedaan ku siinayaa, igu salaam si aan u wada sheekaysano. Arrintu halkan ayay ka soo socotaay, la socda. Wuxuu soo socdaa uu Khartoum yimaadaba, lambarkii haddii uu wacay, gabadh ayaa ka qabatay. Wuxuu ku yidhi, heblay, seeta abaayo? Waan fiicanahay, alxamdulilah, khayr. Adiga yaa wacay? Wuxuu ku yidhi, waxaan ahay darawal ka yimid dhanka iyo Kenya, wada gawaarida ka soo gasha Kenya, u kala gooshta Khartoum, South Sudan iyo Kenya.
laakiin lambarka waxaa isoo siiyey wiil aad tihiin asxaab amba ku jecel, wuxuuna ii sheegay inaad joogto halkaa si aan xaaladaada u ogaado. Alaab ayuu igu soo kaadibay, marka intee isku aragnaa amba aynu ku kulannaa inta maanta, because anigu waan inaan baxaa hotelkaygana aan sii aadaayay waqtiga waqtiga ku socda. Allahu akbar, maxaa iman doona asxaabay? Kabacdi waxaa dhacday wiilkii markay gabadha u imaatay way iswareysteen. Amar ilaahay, marka taleefonka gabadha ayaa waxaa ku jira sawir uu leeyahay wiilkan. Markaasuu wuxuu ku yidhi, way tustayo waxay ku tiri, adiga waan ku garanayaaye oo sawirkaada ayaan hayaaye, adigu hebel ma tahay? Magaciisa ayay sheegtay. Markaasuu wuxuu yidhi, haaye waan ahaye, adigu maxaa tahay? Waxay tiri, walaalow adigan qalad ii fahmin, hebel wuu ila dhashay. Arrinta meeshaan ay ka qasbi doontaa. Hebel wuu ila dhashay haddii aad hebel tahay. Wuxuu dhawaanahay oo sawirka aad hayso waa aniga. Maxaad ka hadlaysaa? Sideesu ku tahay walaashay? Waxay sheegtay hooyadii magaceeda saddexan, walaashii walaashadka yar oo asigoo yaqaano la dhalatay oo dalka Muqdisho joogto. Wuxuu kaloo ay sheegtay aabbihii wiilka dhalay oo aabahii ah. waa arrinta way qasbatay. Markaas ayuu wuxuu ku yidhi, halkan maxaad ka qabataa? Waxay tiri, waan ka shaqeeyaa. Wiilka wuu yaabo, wuxuu yidhi, sidee ku dhici kartaa gabadhan garanayn oo walaashay ah oo sheeganaysa familkeena? Waa inaan wacaa hooyo, abe, kabacdina aan weydiiyaa xaaladdan waxay tahay, sidee ku dhacday arrintaano. Wuu wacay ayagoo isla fadhiya. Markaasna wuxuu u sheegay xaaladda siday tahay, inuu gabar loogu soo dhibay alaab, lambarkeeda loo soo qoray, magaceedana loo sheegay, laakiin ay dib ka naqatay walaashii. Waa arrin la yaab leh. Intee lagu arkay? Aabbihii ayaa la weydiiyey, wuxuu yidhi, gabadhaas way jirtaayo hadda ka hor ayaan gabar joogto Khartoum guursaday, markaasna way ii dhashay, because waa markii Soomaaliya dagaaladu ka dhacayeen. Gabar Soomaaliya imaatay oo dadka Suudaanida ka mid ah ayuu guursaday, ayuu yidhi adeer. Wuxuu sheegay in micnaha gabadhu markii la kala qaxday waa markuu isugu guursi doonay wiilkan hooyadii. Markaasna ay ugu dambeyday dib dambana uunan arkin, laakiin uu maqlay in ay gabar dhashay, magaca ay gabadhuna ay isla yihiin. Halkaa waxaad ka caddaatay gabadhan iyo wiilkan inay isla dhasheen. Halkaa ayay qisadu noo waagtahay. qaybtii labaad waxay soo geli doontaa habeenka bacdi, insha Allah billahi kareem. La socda channelka, subscribe saara, like and comment and share. Lacag maaha, waa free. Dhammaanna nah xushmeeya. Intayna la joogtay waxaynu leenahay nala sii jooga. Intii nagu soo biirtana waxaan leenahay thank you dhammaantiinna. waad mahadsantihiin wiilal iyo gabdho. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.